75 sano kadib dagaalkii labaad adduunka hubkii lagu dagaalamay shacabka degan magaalada Bolzano ee dalka Talyaaniga waxaa ku dhacay shoog iyo amakaag kadib markii magaaladooda wada dhaxmarta oo hool dhismaha ka socotay laga helay haraadiga hubkii la isku adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka 75 sano ka hor. gelinkii hore ee maanta kooxo shaqaale oo dhismo ku jiray ayaa si lama filaan ah dhulka hoostiisa ku arkay bamba aad u weyn, isla markiiba waxaa goobta soo gaaray ciidanka Talyaaniga iyadoo meeshii laga soo saaray bamba ka mid ah hubkii lagu dagaalamayay dagaalkii labaad ee adduunka. culeyskeeda waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 230 kilogram. sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Talyaaniga, ma ahan markii ugu horeysay helitaanka noocyada hubka ee kala duwan ee haraadiga dagaalkii labaad ee adduunka oo raadadkiisa meel kasta laga helayo. Arbacadii la soo dhaafay ayaa bamba kale oo Ingiriis ah oo culeyskeeda dhammaa 500 oo kilogram laga helay waddo tunnel ah oo isku xirta Talyaaniga iyo Faransiiska, taas oo shaqo dhismaha ka socotay.